بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد caawa waxaan ugu talagalay inaan ku yar caweyno qisadan insha allahu taariikhda waaweyn ee islaamka cudamada islaamkana aan wax yar ka yar aftiinsano. waxaa la yidhi ninkii asaga ahaa dowladdii horta xoogaa dulduleelkii soo galay, ninkii odayga ahaa ka dhintay, wuu saxay, ciidan buu dhisay, wuxuu noqday nin mujaahid oon seexanaynin oon nasanaynin. 50 sano la yirahdo mar qaarkood ayuu maartay 30 iyo dhowr sano ayuu wadanka xukumayaa la yiri. waxuu duulaa la yiri 54 duulaan lam yusqad lahu raaya idan dadka taariikhyahanka muslimiinta weligiis hal duulaan oo uu duulay kumuso guuleysan waynin ama laguma soo jebinin. 54 taas bagaalada uu ka guuleysan yahay wuxuu ku duulayna gaalay ahayn. waxaa kaloo la yiri kitaab qur'aan oo asaga gacantiisa uu ku qoray far qurxan buu ahaa baa la yiri. dadka hore farta la bari jiray sida anaga macallimiinteena baadiyaha ay farta qurxan ma ilmaha u bari jireen. kitaab asaga gacantiisa uu ku qoray oo masxaf ayuu wadan jiraa la yiri. markuu duulaanka u wato ama mar kastaba safarihiisa waxaa kaloo cajiib ah lagu sheegay kafantiisu qaadan jiraa la yiri. kafantana waxaa la yiri xoolaha mushaarada asaga gaarka xoolaha dawladda ama shacabka uu leeyahay muu qaadan jirin. xoola asaga mushaar ahaan ama ghaniimada dagaalka uu ku galay xaq wuxuu asaga u lahaa oo dadka kala sinaa oo xalaal ayuu kafanta ka talin jiraa. waxaana u talaa la yiri gabdhuhu asaga dhalay ayaa ma aragtay duntu soo gadani gabdhaha u falgin jireen oo kafanta marada u toli jireen u hagaajin jireen. kafan noocaas uu qaadan jiraa la yiri. asoo kafantiisa wato masxafkana wato ayuu duuli jiray. arrinta kale oo cajiibka ku ah waxaa la yiri duulaan kastoos duulo dharkiisa iyo kabihiisa siigada ku duusho intuu hurgufos arooriyo ayuu meel ku ridi jiraa la yiri. meel buu ku ridi jiray marka wuxuu yidhaa la yiri markaan dhiman hayo siigadii oo aruurtay carab badan noqotay oo meel u tolay weel u toshay uu ku shubay ayuu wuxuu dhihi jiraa la yiri muxuu ahaaye markaan dhinto kafantayda hal ila geliy sida ilaahay subxaanahu watacaala aan agtiisa ilaahay aan u weydiisto u dhaho ilaahayow ay igu marag furaan waata siigadan oo dhan ilaahay diintiisa koryeelideeda ayaan u yeelay. waxaa la yiri islaamku wuxuu gaarsiiyey meel dadkii asaga ka horreeyey oo wadanka furtay Daariq ibn Ziyaad iyo Musa ibn Nadir ay gaarsiinin ayuu gaarsiiyaa la yiri. ninkaas marka waa nin subax intuu soo toosay yiri waxaan noqonayaa madaxweynaha asagoo hoos jooga meel hoose oo liita jooga. ha yeeshee maartay wuxuu xaqiijiyey maqsad adag iyo tala adag iyo wadan buu dhisay. waxaa la yiri dowladdaas dowlad Andalus la dhihi jiray oo Qurduba ka talinaysay waqti ay ka xoog badneed ma jirin. waxaa la yiri waa ninka kaliya oo amiirul mu'miniin ama madaxweyne ka noqdo wadankaas oo ilaa yawmina gaalada taariikhdooda ku qoran oo ay geeridiisa ku farxeen baa la yiri. ninka markuu dhintay way dabaaldegeen baa la yiri gaalada, waayo wuxuu ku ahaa laf guri dhuunta gashay. nin wuxuu ahaa cajiibe oo muxuu ahaaye maanta marka gaaladan dadka muslimiinta aad u riixaysid arkaysaan wadanka Andalus markay qabsadeen muslimiinta ku baabiyeen wax walba ka dhacay taariikh dheer bay lahayd. waxa ay taariikhda u qoran wax walba ay og yihiin. marka anaga dadkeeni wanaagsanaa waan ku dayanaynaa. dad kale oo hata aan muslimiin ahayn oo ku dayanayna way jiraan oo wadankooda hagaajisteen oo haddaba nala nool. wadamo badan waxaa jirta nin uu soo kacay hal nin sidoo kale oo hata aan muslim ahayn oo wadankiisa dhistay oo hagaajistay. afrikadan way ka jiraan. Botswana wadanka la dhaho laga sheekeeyaa.